waxaa goordhow si rasmi ah xadka ee waddanka Belarus ka furmay wadahadal u dhexeeya wufuud ka kala socota dowladaha Ruushka iyo sidoo kale waddanka Ukraine, waxaana laga wada arinsanayaa xaaladda guud iyo dagaalka dhinacyadan ee maalmahan dhex maraya, iyada oo warbaahintana goobjoog ay ka tahay wadahadallada dhex maraya dhinacyadan. wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiinta Belarus ay iyagu dadaal ugu jiraan sidii dhinacyada loo wada hadalsiin lahaa, xilli markii hore Ukraine ay iska diiday in dhanka Belarus wadahadalka lagu qabto, taasoo ay ku micnaysay kadib markii ciidamo Belarus ay dagaalka soo galeen, sidoo kalena madaafiic looga soo riday dhanka Belarus. hase ahaatee madaxweynaha Belarus oo hanjabay ayaa arrintan sidoo kale iska beeniyey. hase ahaatee waxa uu sheegay haddii ay isku dayaan Ukraine in ay daandaansi ku sameeyaan dalkiisa in uu dagaal qaadi doono. mas'uuliyiinta Belarus waxay u sheegayaan wufuudda labada dhinac in waxa la isugu yeeray ay tahay inay wada tashtaan, inay yihiin laba dal oo daris ah, dadkoodu isfahamsan yahay, muhiimna ahayn in la dagaalamo, taa beddelkeedna laga wada xaajoodo dhinacyada waxa ka dhexeeya, sidoo kalena meel la iska dhigo hadallada iyo dalalka shisheeye ee colaadda hurinaya. mas'uuliyiinta Belarus sidoo kale waxay u sheegayaan wufuudda ka kala socota dowladaha Ruushka iyo Jarmalka in masiirka dalalkooda gacantooda uu ku jiro, isla markaana dagaal aanu soo kordhinayn waxaan dhib ka ahayn. sidaasi darteed loo baahan yahay in la sameeyo isku tanaasul iyo isfaham. wufuudda Ruushka waxaa la filayaa inay u sheegaan dowladda Ukraine xubnaha ka socda in iyagu aanay diyaar u ahayn inay dalkooda qabsadaan, hase ahaatee keliya ay doonayaan Ukraine inay noqoto dhexdhexaad, maadaama Ruushka uu leeyahay cadow badan oo reer galbeed iyo sidoo kale Mareykankaba ah. sidoo kale xubnaha Ruushka ayaa la filayaa iyagu inay hordhigaan qodobada ay ku joojin doonaan dagaalka, halka xubnaha Ukraine iyaguna shuruudooda ay soo bandhigi doonaan. laakiin labada shuruudood ee ay kala wataan wufuudda waxaa aad u adag shuruudaha ay wadato dowladda Ruushka, waxaana la sheegayaa inay ka mid tahay arrintaasi in marka hore dowladda Ukraine ay aqbasho in marnaba aanay ku fikiri doonin inay ka mid noqoto ururka NATO, sidoo kale inay culayska ka qaadi doonto gobolka Donbass, in sidoo kale ay aqbali doonto inay noqoto dowlad dhexdhexaad ah oo aan marnaba ku soo jeesan Ruushka. Ukraine oo horey isaga diiday dalabaadka Ruushka ayaa hadda la ogeen waxa ay ku jawaabi doonto, laakiin tani waxa ay noqonaysaa ifafaalo nabadeed oo hordhac ah, walow weli dagaalka uu yahay mid ka soconaya gudaha waddanka Ukraine. geesta kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka Ukraine, dagaalada waxa ay yihiin kuwo aad u soconaya, iyadoo ciidamada Ruushkana ay duqeynayaan magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah waddanka Ukraine. Ruushka markii ugu horeysay waxa uu qiray in khasaare uu ka soo gaaray dagaalka ka socda waddanka Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa barteeda Twitterka ku soo qortay warbixin sirdoon oo ku saabsan xaaladda dagaalka ee waddankaas. warbixinta waxaa lagu xusay in inta badan ciidamada Putin ee dhulka ay ku hareen in ka badan 30 kilomitir waqooyiga magaalada Kiev. waxaa laga hor istaagay ciidamada Ruushka ku shaqista dhanka garoonka Hostomel, taasoo muhiim u ah Ruushka. dagaal culus ayaa ka socda agagaarka Chernihiv iyo sidoo kale Kharkiv. si kastaba labada magaalo ayaa weli ku jira gacanta Ukraine. waxaa jira isku dayo la doonayo in lagu xakameeyo xogta dagaalka ee ka imaanaysa dhanka waddanka Ruushka. ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa markii ugu horeysay waxa ay noqdeen kuwo qirtay khasaaraha culus ee la soo gaarsiiyey. geesta kalena reer galbeedka ayaa waxa ay xusuusiyeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku dhawaaqay in ciidamadiisa nukliyeerka ah ay heegan sare ee galaan si ay dunida u xusuusiyaan inuu leeyahay hubka wax gumaada. ayaa haddana iyaguna waxay u sheegeen in laftigoodu ay haystaan hub wax gumaada oo ay isaga celin karaan Ruushka. xogayaha gaashaandhigga Ingiriiska ayaa sidaasi sheegay. waa inuu ogaadaa Putin xaqiiqda ah in saaxiibkiis kaliya xilligan uu u muuqdo inuu yahay madaxweynaha Brussels. waa in uu garwaaqsadaa inay hubaal tahay in taariikhda dhanka xun uu ka galayo. waxa uu sheegay xogayaha in dowladda Ingiriiska aanay u muuqan wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka nukliyeerka ee Ruushka. wuxuu intaasi ku daray Mr. Penn in Ingiriisku sidoo kale uu yahay mid awood u leh hubka wax gumaada ee nukliyeerka, iyadoo ay tahay in Putin uu ogaado in wax waliba oo ku lug leh nukliyeerka ah inay ka wada siman yihiin, halka reer galbeedku ay leeyihiin quwad ka ballaaran tan Ruushka markay timaado nukliyeer. wuxuu carabka ku dhuftay xogayaha in dowladda Ingiriiska aysan qaadi doonin tallaab uga sii darta xaaladda taagan ee cakiran, balse hadallada la isweydaarsanayo ay tahay dagaal afka ah, isaga oo ku taliyey in si wanaagsan dhibaatada jirta loo maareeyo.
dhinaca kalena daawadayaal bal aynu eegno noocyada hubka ay reer galbeedka siiyeen Ukraine. iyadoo ruushka uu ku duulay dalka Ukraine kaasoo bilowday 24 Febraayo ayaa dalal dhowr ah waxay sii wadaan taageerada ay siinayaan dalkaasi, tallaabadaas oo aan horey loo arag. haddaba yay kala yihiin dalalka hubka u soo diray Ukraine, maxay kala yihiin hubka ay ballan qaadeen? tirada hubka ayaynu ku hormareynaa. Sabtidii Mareykanka, Jarmalka, Australia iyo Netherland waxa ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay hub u dirayaan Ukraine si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ballan qaaday inay u soo dirayso Ukraine hub qiimihiisu dhan yahay $350 milyan oo ay ku jiraan gantaalada Javelin, gantaalada lidka diyaaradaha iyo jaakadaha aan xabadda karin. dhinaca kale, Jarmalka wuxuu sheegay in dalkiisa uu hadda hub geyn doono Ukraine. hogaamiyaha Jarmalka waxa uu sheegay in dowladdiisu ay u diri doonto Ukraine 1,000 ka mid ah hubka lidka taangiyada iyo 500 oo gantaalaha lidka diyaarada ah, kuwaas oo loogu talagalay inay soo ridaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee jooga hoose ku duulaya. dalka Netherland wuxuu ku dhawaaqay in hubka Benzerafus 3 ee lidka taangiyada iyo 400 oo gantaala ah siinaya Ukraine. labada dal ayaa eegaya suurtagalnimada in Ukraine la siiyo nidaamka difaaca hawada ee isku dhafka ah loo diro kooxda NATO ee fadhigeedu yahay Slovakia. Sweden oo ku caan baxday dhexdhexaadnimada iyo xalinta colaadaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay gargaar militari u diri doonto dalka Ukraine. gargaarkan oo noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 1939 markaas oo midowgii Sovieti uu ku duulay wadanka Finland. dalka Canada wuxuu dhankiisa u ballan qaaday Ukraine in uu u dirayo $19.6 milyan oo agab militari ah oo isugu jira koofiyadaha, jaakadaha, rasaasta celiya, maaskarada celisa gaaska iyo qalabka habeenkii ay militariga wax ku arkaan. gudoomiyaha guddiga midowga Yurub ayaa Sabtidii shaacisay in markii ugu horeysay dalalka Yurub ay maalgelin doonaan soo iibinta iyo hubka la gaarsiiyo dalka uu Ruushka ku duulay. gaashaanbuurta NATO waxay bilowday inay ciidamo u dirto bariga Yurub si ay si degdeg ah jawaab uga bixiyaan halis kasta. ugu dambeynna dalka Australia ayaa axadii ku dhawaaqay in uu dhaqaale siinayo Ukraine si uu uga qayb qaato dagaalka lagula jiro ciidamada Ruushka, balse wax faahfaahin ah kama uusan bixin inta ay la eg tahay taageerada uu siinayo Ukraine.